jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu qabtay xaflad lagu sabootinayay ay ku dhawaad 70 arday oo qalin jabisay culunta barashada kombiyuutarada iyadoo waliba jaamacadaasina lagu qabtay kulan lagu xirayay barnaamij caafimaad oo ardayda wax ka barata jaamacadda bariga Afrika faraceeda Boosaaso ay ka wadeen gudaha jaamacadaasi warbixintaasina waxaa Boosaaso nooga soo diray wariyaheena Maxamed Deeq Cabdalla. xafladan oo ahayd qalin jabinta dufcadii 11 ee dhamaysa kuliyadda kombiyuutarka ee jaamacadda bariga Afrika waxaa ka soo qayb galay guddoonka jaamacadda hormuudada kuliyadaha ardayda kuliyadda kombiyuutarka ee jaamacadda bariga Afrika waalidiin iyo dadyo kale waxayna xafladan ahayd mid si qurux badan loo soo agaasimay ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay injineer Abshir Yaasiin hormuudka kuliyadda computer science ee jaamacadda bariga Afrika wuxuuna hambalyo u diray dufcadii 11 ee sanad waxbarashadeedka 2013-2014 ka baxaysa jaamacadda oo dhan 70 arday kuliyadda BCS oo aan hadda huwanahay shaatigeeda BCS waxay u taagan tahay Bachelor of Computer Science kuliyaddan waxaa la aasaasay 2003 waa kuliyaddii saddexaad oo laga aaso jaamacadda bariga Afrika kuliyaddii ugu horeysay oo la aasaasay waxay ahayd shareecada kuliyaddii ku xigtay waxay ahayd BBA-da kuliyaddii saddexaad baa waxay ahayd kuliyadda BCS-ta ama Computer Science marka la tirinayo kuliyadaha jaamacadda bariga Afrika waa kuliyaddii saddexaad laakiin marka la tirinayo kuliyadaha la midka deegaanadeena waa kuliyaddii ugu horeysay oo laga furo deegaanka Puntland. Sheekh Maxamed Macalin Ahmed gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga Afrika ayaa dhinaciisa maamulka Puntland baaq u diray ku aadan in la jiheeyo ardayda waxbarashada dhamaysata. maamulka kelmad baan leeyahay ardaydan faraha badan oo soo baxday waxay u baahan tahay shaqo abuur waxay u baahan yihiin in la hawlgeliyo waxay u baahan yihiin in loo diyaariyo sidii mustaqbalka waddanka ay ula wareegi lahaayeen oo qaban lahaayeen waxa marka maamulka looga baahan yahay arinta inuu diyaar garoobo annagu waan soo saarnay ardaydii laakiin cidii hawlgelin lahayd waa maamulka suuliyada maamulku inuu ka soo baxo ayaa loo baahan yahay Hayaan Maxamed Diiriye oo ku hadlaysa magaca ardayda kuliyaddan ka baxaysa ayaa iyana dardaaran u dirtay waalidka waxaan ognahay in gabadha wax baratay ay ka duwan tahay gabadha aan wax baran waxaan ognahay hooyooyinku gabdhuhu inay yihiin hooyooyinka mustaqbalka waxaan la soconaa in gabadha wax baratay ay soo kicin doonto jiil cusub sidaa darteed waxaan jeclahay in gabdhaha waxbarashada la tayeeyo halka ay Soomaalidu kaga dadaasho gabadha waxbarashadeeda ay ka jeceshay wiilka waxaan ognahay dadka baadiyayaasha jooga in ay wiilasha waxbarasho u soo diraan ama tuulooyinka halka ay gabadha ariga u diraan xafladda intay socotay waxaa ardayda soo bandhigeen riwaayad xiiso badan oo ka turjumaysa sida looga faa'iideysan karo tiknoolajiyada casriga balse aysan uga faa'iideysan ganacsiyada qaarkood oo wali isticmaalaya nidaamkii hore ee buug iyo qalinka buugayga maaragtay xisaabaadka ugu qornaayeen maaragtay ya markina inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun حفظها لو عاي ما حفظين لو عاي أمروي بوجي مارد بوجي علوك عنو سنة والعلوك كذا بوج مارد بوج علوك علنا هذا ما يقول قرنا ينا كيا المسلم الإسلام هذا صعبات كذي لنا بوج ما يسار لا إله إلا الله محمد jaamacadda bariga Afrika Professor Cabdirasaaq Hiirad Maxamed oo ardayda u rajayay guul inay bulshada wax ku soo kordhiyaan laakiin hadda waxaanu idin leenahay waxa weeye in jaamacaddii aad dhowrka sano joogteen oo aad wax ka baranayseen inay caawa idin sagootiso oo xaggii academically waxbarashadii ay idin dhamaatay idinku sagootiso waxaad isu diyaarisaanna waxa weeye waa qalin jabintii oo ahayd imtixaanada idin haray iyo buuggii teesaha ahaa in aad dhamaystirtaan waxaana gabagabada ardayda dufcadda 11 ee dhamaynaysa kuliyadda computer science ee jaamacadda bariga Afrika ay shahaadooyin iyo abaalmarino siiyeen macallimiintoodii iyo maamulka jaamacadda ay macsalaameynayaan ee bariga Afrika